Soomaaliya waxay gashay qalalaasa siyaasadeed iyo mid dastuuri ah sababtoo ah khilaafka ku salaysan kala aragti duwanaanshaha doorashada iyo shuruucda waddanka. sidaasi waxaa qaba siyaasiyiin iyo sharci yaqaano. 9kii bishii Juulaay aynu soo dhaafnay ayaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre kulan uu la yeeshay golihiisa wasiirada uu ka sheegay inay ka shaqeeyaan sidii dalka ay uga qabsoomi lahayd doorasho waqtigeeda ku dhacda. waxay ahayd markii labaad ee hadal noocaas ah uu ka soo yeero ra'iisul wasaaraha, kaasi oo muujinaya kala aragti duwanaansho u dhaxaysa isaga iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. shirka golaha wasiirada maanta waxaa ka soo baxay marka in golaha wasiiradu ay si joogtaha uga shaqeeyaan dardargelinta fududaynta ka shaqeynta sida ay ku dhici lahayd doorasho ummadda Soomaaliyeed ay isla ogoshahay. waxaa kaloo isla qaadanay doorashadu inay ku dhacdo waqtigii loogu talagalay ay ku qabsoonto. sidoo kale waa in laga fogaadaa in ay dhacdo ama lagu shaqeeyo fikir ku salaysan muddo kordhin. hadalkaasi waxa uu culays siyaasadeed saaray madaxweyne Farmaajo. jawaabta madaxweynuhuna waxay timid daqiiqada gudaheed, iyadoo isla maalintaas uu madaxweynaha laftiisu ka daba qaatay ra'iisul wasaaraha, wuxuuna sheegay inuu soo dhaweynayo baaqa golaha wasiirada oo ahaa in doorashadu ay waqtigeeda ku qabsoonto. wuxuu intaas ku daray qoraalka uu soo saaray madaxweynuhu 2 qodob oo ahaa in awoodda loo dhoweeyo shacabka iyo inay lagama maarmaan tahay inaan dalka loo horseedin muddo kordhin, lana hirgeliyo doorasho waafaqsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka sida lagu sheegay qoraalka madaxweynaha. hadalkaasi waxa uu madaxweynuhu sii xoojiyey markii la isugu tegay magaalada Dhuusamareeb. isagoo hadlayay 22kii Juulaayna waxa uu yidhi sidan: maalintiina la doortay ilaa maanta waxaan ku haynaa shacabka, xiriirka shacabka iyo dowladda waa in la xoojiyo, waa in awoodda shacabka lagu celiyo, waa in shacabku ay yihiin sovereign, dadka dowladnimada iska leh oo dalka iska leh yaa ku weyn, oo shacabku waa kicin, laabtoodii waa kicin, waxay aaminsan yihiin inay aadi doonaan doorasho toos ah bacdama wax alla wixii doorasho ahaa oo la yaqaanay hore loo soo maray. markii la isugu tegay magaalada Dhuusamareeb, khubaro kala duwan waxay filayeen in ra'iisul wasaare Khayre uu aad u sii caddayn doono mowqifkiisa si dheelitir siyaasadeed uu u yimaado. ha caddeeye mowqifkiisa ama yuusan caddaynine waxay u muuqatay madaxweyne Farmaajo inuu ogaa mowqifka ra'iisul wasaaraha. 25kii Juulaay baarlamaanka Soomaaliya waxay codka kalsoonida u qaadeen ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo dowladdiisii, waxayna ku codeeyeen inay ridaan. daqiiqada uun kadib tallaabadii uu baarlamaanku qaaday, madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu aqbalay go'aanka baarlamaanka uuna soo magacaabayo ra'iisul wasaare cusub. isla maalintaas ra'iisul wasaaruhu waxa uu ka soo laabtay magaalada Dhuusamareeb, waxaana uu cambaareeyey qaabka loo maray xilka qaadistiisa. waxaase uu sheegay inuu go'aansaday inuu iscasilo. xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawaa waxa uu ka mid ahaa xildhibaanadii u codeeyey in ra'iisul wasaare Khayre codka kalsoonida lagala laabto. anagu de muddo dheer baan lahayn xukuumadda iyo madaxtooyada iyo madaxweyne Farmaajo iyo xukuumaddiisuba runtii sharci ku tomasho iyo ogolaansho yani waxqabad xumo iyo muddaba la soo taagnayn oo ku eedeynay marnaba iskama aanan bedelin in madaxweynuhu haddii maadaama madaxweynaha la doortay cidda markaa fashalkeeda madaxtooyada iyo haddii muuqdo cidda ugu yaraan in inta la bedelo fashalka haddii la xallin karo lagu dareemi karana waxay ahayd xukuumadda. waxaad ka warhaysaa qodobo dastuuriga oo waaweyn ba xukuumaddan iyo madaxweynuhu iskula tunteen oo ay ka mid ahaayeen dhiibistii qalbi dhagax, oo ay ka mid ahaayeen weerarkii Cabdiraxmaan Cabshakuur, oo ay ka mid ahaayeen Jawaari iyo arrimo kaloo aad u tiro badan oon diidanayn oon maalin walba ka hadlayna. waxaa ka mid ah habka nidaamka federaalka loola macaamilayo iyo dowlad goboleedyada. waxaad ka waraysaa Haruun oo annagu inaan lahayn war dowlad goboleedyada xayndaabka dalka iyo dastuurka dalka qayb muhiim ay ku leeyihiin, madaxweynuhu ha la fariisto. waxaad ka waraysaa madaxweynuhu inuu dowlad goboleedyada shaqada uu ka qabtay Jubbaland uu 2 u kala jaray almost Gado iyo intii kale Koonfur Galbeed iyo Galmudug shaqadii ay ka qabteen waad ogtahay. nimankaanu niman isla jirkoodu oo wadanka halis ku ahaa buu ahaa. marka annaga kalsooni markii horeba iskuma aanan qabin annaga xukuumaddu, laakiin hadda riditaanka xukuumadda ma aanan sponsor garayn. mooshinaan annaga ka keenana kuma aysan dhicin, laakiin sida muuqata madaxtooyada pressure ka yimid ee guddoonka baarlamaanka soo maray baa uu ku dhacay. laakiin haddii nala ka waraysto inuu dhaco raalli baan ka ahayn iyo nus. haddaba khubarada dastuurka iyo falanqeeyayaashuba waxay sheegeen in hanaanka ridista ee ra'iisul wasaaraha aan loo marin sharci,
gaar ahaan qodobka 54 ee xeer hoosaadka baarlamaanka oo dhigaya in doodda kalsooni kala noqoshada ay furanto 5 maalmood ka hor intaan codka la qaadin isla markaana ra'iisul wasaaraha loo yeero lana siiyo waqti uu isku difaaco. tallaabo kale oo dhalisay dood dhinaca sharciga ah waxay dhacday 30kii bishii Julaay ee aynu soo dhaafnay markaasi oo golaha wasiirada ee sii haya xilka ay ansixiyeen 5 xubnood oo ka mid noqonaya 9 xubnood ee golaha adeega garsoorka. dhismaha golaha adeega garsoorka waxa uu hordhac u yahay dhismaha maxkamadda ugu awoodda badan dalka oo ah maxkamadda dastuuriga ah. maxkamaddaasi awood u leh inay qaado qodob kasta oo dastuuri ah oo la isku qabto. inta aynaan haddaba u gudbin maxkamadda dastuuriga ah iyo saamaynta ay ku yeelan karto muranada siyaasadeed ee taagan bal aan eegno waxa uu yahay golaha adeega garsoorku. Ibraahim Iidle Sulaymaan waa gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya. golaha adeega garsoorku marka la leeyahay ama laga hadlayo mabda'a xagga dawladnimada ee la yiraahdo kala qaybsanaanta awoodaha marka waaxda garsoorka cidda maamulaysa ee u sarreysa waa golaha adeega garsoorka waa baarlamaanka garsoorka sida golaha wasiirada kale uu yahay baarlamaanka ama boardkii ugu sarreeyay ee wasaaradaha ayaa golaha adeega garsoorka wuxuu yahay cidda maamulaysa maxay garsoorkii. sidee ayaa haddaba lagu soo kala xulayaa xubnaha ka mid noqonaya golaha adeega garsoorka? 9 xubnood waxay kala imanayaan 3 waxay ka imanayaan waxa la beesha hay'adda lehdo ama bulshada rayidka ayaa laga soo xulaya waxaan soo jeedinaya golaha wasiirada waxaana horgeynaya baarlamaanka ra'iisul wasaaraha ayaa horgeynaya 2 waxa soo magacaabaya ururka qareennada Soomaaliyeed baa soo magacaabaya 5 marka laga tago 4 kale xafiisyo ku imanaya oo xeeraryaha guud iyo gudoomiyaha maxkamadda sare gudoomiyaha hay'adda xuquuqul insaanka oo aan weli la dhisin marka la dhiso gudoomiyaheeda ayaa isna xubin ka noqon doona maxkamadda dastuuriga oo iyana aan la dhisin ayaa isna gudoomiyaheeda xubin ka noqonaya marka 4 xubnood waxay ku imanayaan xafiisyo oo qofka marka xafiiska jooga ku doonaba ha ahaadee ayaa soo fadhiisanaya miiska oo noqonaya xubin ka mid ah. ansixinta xubnaha golaha adeega garsoorka ee golaha wasiirada ee xilka sii haya ma loo maray qaab sax ah? waa kan garyaqaan Ibraahim Iidle Sulaymaan gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare. horta maxkamaddii xukuumadda dhacdo waxa ka dhalanaya waxyaalo fara badan baa sharciyan ka dhalanaya oo waxa ka dhalanaya siyaasadii xukuumaddu marka hore ku shaqeynaysay meesha inay ka baxdo oo ay lunto waayo siyaasaddu waa waxa isku xidhayay ama barnaamijka xukuumadda waxa isku xidhayay xukuumadda iyo golaha shacabka barnaamijka isku xidhayay barnaamijka meesha ka baxaya taas waa qodob. xukuumadda markii hore waxay ahayd xukuumad rasmi ah oo dabeecadeedu ay tahay berman ay tahay ay ahayd taasina meesha wax ka baxaysa iminka dabeecadeedu ma aha xukuumad rasmi ah maaha waa xukuumad ka meel gaar ah laakiin waxay shaqeynaya kaliya waa maxay waa hawlaha la yiraahdo hawl maalmeedka ayay fulinaysaa xukuumadda marka iyagu mana sameyn karaan oo awoodoodu ma aha ma gaarsiisna in ay soo saaraan go'aamo ay waajib tahay xukuumadda ka dambaysa inay fuliyaan ama go'aamada ay iminka soo saaraan kuma khasbana xukuumadda kale waxba kuma waajibin karaan sababta waxa ugu waajibin karaan waa maxay waxaana haysan kalsoonidii baarlamaanka. qodob dastuuriya ama habraac kale ama xeer hoosaad u diidaya xukuumaddan hadda sii hayaha ra'iisul wasaaraha iyo wasiiradiisa u diidaya inaysan ansixin karin qodobka golaha adeeg garsoorka miyaa jira? horta sharcigu waxa weeyaan waxaan waa awood sharciga bixiya isla waxay tahay ma aha wax u diidaya ma jiraan laakiin waxa weeyaan ma jira qodob sharci awood siinaya yaa sababtu waxay tahay qodobka 103 wuxuu tilmaamaya inay xukuumaddu sii haynayso ay hawl maalmeedkii sii wadayso hawlihii sii wadayso inta xukuumadda kale la sameeyo sidaa darteed xukuumadda tan fikirka ama fiqiga xagga sharciga ee caalamiga waa maxay in ay tahay maxay xukuumad ku meel gaar ah sidaa darteed waa in iyaga laga rabaa xujada waa maxay waa cidda leh awoodan waa leeyahay ba xujada laga rabaa laakiin xujadu ma aha yaa u diidaya waxa weeyaan yaa awood siinaya qodobkeeba awood siinaya qodob dastuuriyaba maxeerba waxa weeye jirta cid meel awood bixinaysa awood kuma timaado yaani xafiiska cid joogta laakiin awood waxay ku timaadaa maxay waxa sharcigu bixiyay. xisbiyada mucaaradku waxay ka soo horjeesteen ansixintii xubno ka tirsan golaha adeega garsoorka ee xukuumadda xilka sii haysa. sidoo kale xildhibaanadii kalsoonida kala laabtay ra'iisul wasaare Khayre waxay qaarkood dhaliileen tallaabada ay qaaday xukuumadda xilka sii haysa. xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa xukuumaddan hadda horta waa xukuumad xilgaarsiin ma haysato kalsooni baarlamaan maadaama aysan haysanin kalsooni baarlamaan wax go'aano ah oo ka badan in nolol maalmeedka dawladnimada la wado oo qaadan karto ma jirto laakiin waxay qayb ka tahay tacdiyaadka dastuuriga ah oo hore u soo sheegnay golo ma ahan hadda waa ku sibayaal
hadda sidii golay u shiraan go'aano golay soo saaraan waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah guddiga adeega garsoorka oo ah guddi dastuuriya oo 3 sano ee barkii la soo dhaafay madaxweynaha laga sugayay ay maalin dhaweed soo sameeyeen dabcan waxaas oo dhan waxay baal marsan yihiin dastuurka shirkooduna wax ka soo qaad male go'aamadooduna wax ka soo qaad male maxaa haddaba la yeelayaa haddii ay dhacdo muddo kordhin uu sameeyo aqalka baarlamaanka taasina ay ka hor yimaadaan xisbiyada mucaaradka iyo maamul goboleedyada oo iyagu qoraal ku sheegay in doorashadu wakhtigeeda ay ku dhacdo dhinaca kale muxuu noqonayaa doorka maxkamadda dastuuriga ah brofesor afyare cilmi oo daraasaadka amniga ka dhiga jaamacadda qatar waxa uu si dhow ula socday qalalaasaha siyaasadeed dad kale oo yaqaana arrimaha dastuuriga waxay leeyihiin arrimahan haddii uu dhaco muran dastuuri ama qalalaas dhinaca dastuurka oo ku saabsan muddo kororsi ama xilliga ay dhacayso doorashadu in hay-addii ka gaari lahayd go-aanka ay tahay maxkamadda dastuuriga ahayd oo aan dhisnayn laakiin tallaabo ay qaadeen golaha wasiirada oo lagu dhisay lagu magacaabay xubno ka tirsan golihii adeega garsoorka ayaa dad badan dareen gelisay maxaad ka akhrisatay adigoo arrintaas waxaan ka mid ahay dadka dareenka ay gelisay waayo waxaa muuqatay in horta dee xukuumad oo dhacday oo ayada laftirkeedu inay mandate haysato iyo in kale aynan doodba lahaynba inay arrin saa u adag anigu dee intaan ka fahamsanahay maybe tanina waxaa laga yaabaa inay tahay yani fasiraad laakiin intaan ka fahamsanahay xukuumaddu markay dhacdo wixii daily activitiesa oo hore u jiray inay sii wado mooyaane yani waxyaalo cusub oo waaweyn inay curiso oo ay la timaado horta dee laguma aqoonin dhaqanada lagu yaqaana ah ma ahayn tan labaad waxa waaye waxaa kasoo muuqanaysa in la rabo in ama dad badan ay u fahmeen oo aniguba aan ka mid ahay in la siyaasadaynayo hay-addii cadaaladda oo markaa la samaynayo hab dad oo yani maxkamad oo aanan ahayn maxkamad ku shaqaysa sharci laakiin ku shaqaysa ciidda meesha keensatay in la rabo in la keeno meesha marka arrintaas ayadaa sida loo abbaaray iyo cidda samaysayba waxaa ka imaaday muran sharciga oo weynaa ka taagan anugu shakhsiyan ma qabo in waddadaas lagu abbaaro ansixinta golaha adeega garsoorka cayrintii ra-iisul wasaare khayre iyo doorashada oo aan wakhtigeeda ku qabsoomin intuba waxay la xiriiraan dastuurka sida ay ku doodayaan khubarada dhinaca sharciga khubaradu waxay kaloo ku doodayaan in maxkamadda dastuuriga ah ay xataa dhagaysan karto dacwadda ku saabsan xilliga doorashadu ay qabsoomayso mar kale waa kan garyaqaan ibraahim iidle sulaymaan xilli doorashadeedku waa dastuuri waa arrin dastuuriya qodob dastuuriya baa tilmaamay oo xilli doorashadeedku waa caynka iyo caynka waa qodob marka xilli doorashadeedku in uu dhaafi karo xilligiisa iyo inaanu dhaafi karin waa arrin dastuuriya maxkamadda dastuuriga ka jawaabaysa oo waa qodob dastuuriya xag kale haddaad ka eegto qofka muwaadinka xaq wuxuu leeyahay inuu muddo xileed waxa la siiyey muddo yani doorashadu waa xaq dastuuriya oo qofku leeyahay inuu wax dooran karo lana dooran karo qofku wuxuu odhan karaa oo maxkamadda dastuuriga horgeyn karaa waxaan u baahanahay xaqaygii dastuuriga ahaa ee dastuurka ii ballan qaaday 4 sanoba inaan mar isticmaalo mar xaqaygu u baahanahay sidaa darteed waxaan maxkamadda sare dastuur ka codsanaya in ay soo saarto xukun ku waajibinaya ama go-aan ku waajibinaya xukuumadda dhexe inay doorashada xilligeedii qabato marka maxkamadda sare dastuurigii xataa waxay ka go-aan gaaraysaa oo sharcigu tilmaamaya yani ka sokow inay waajibin karto natiijada kasoo baxda ayay ka go-aan gaaraysaa marka maxkamadda dastuuriga muddo kordhin ma samayn kartaa maxkamadda dastuuriga ee shaqadeedu waxa weeye in ay ka go-aan gaadho amaba inay fasirto qodob dastuuriya fahamkiisa iyo sharcigiisa go-aan soo baxay inuu dastuurka waafaqsanyay inaan waafaqsanayn tallaabo baarlamaanku qaado inuu dastuurka waafaqsanyay inaan waafaqsanayn tallaabo xukuumadda qaado inuu dastuurka waafaqsanyay inaan waafaqsanayn in tafsiir sharci oo la weydiiyo laakiin iyadu go-aan ay iska soo saari karto oo ah maxay muddadaasaa soomaaliya waxay gashay qalalaasa siyaasadeed iyo mid dastuuri ah sababtoo ah khilaafka ku salaysan kala aragti duwanaanshaha doorashada iyo shuruucda waddanka sidaasi waxaa qaba siyaasiyiin iyo sharci yaqaano 9kii bishii Juulaay ee aynu soo dhaafnay ayaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre kulan uu la yeeshay golihiisa wasiirada uu ka sheegay inay ka shaqeeyaan sidii dalka ay uga qabsoomi lahayd doorasho waqtigeeda ku dhacda waxay ahayd markii labaad ee hadal noocaas ah uu ka soo yeero ra'iisul wasaaraha
kaasi oo muujinaya kala aragti duwanaansho u dhaxaysa isaga iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. shirka golaha wasiirada maanta waxaa ka soo baxay marka in golaha wasiiradu ay si joogtaha uga shaqeeyaan dardargelinta fududaynta ka shaqaynta sidii ay ku dhici lahayd doorasho ummadda Soomaaliyeed ay isla ogoshahay. waxaa kaloo isla qaadanay doorashadu inay ku dhacdo waqtigii loogu talagalay ay ku qabsoonto. sidoo kale waa in laga fogaadaa in ay dhacdo ama lagu shaqeeyo fikir ku salaysan muddo kordhin. hadalkaasi waxa uu culays siyaasadeed saaray madaxweyne farmaajo. jawaabta madaxweynuhuna waxay timid daqiiqada gudaheed, iyadoo isla maalintaasuu madaxweynaha laftiisu ka daba qaatay ra'iisul wasaaraha, wuxuuna sheegay inuu soo dhoweynayo baaqa golaha wasiirada oo ahaa in doorashadu ay waqtigeeda ku qabsoonto. wuxuu intaas ku daray qoraalka uu soo saaray madaxweynuhu 2 qodob oo ahaa in awoodda loo dhoweeyo shacabka iyo inay lagama maarmaan tahay inaan dalka loo horseedin muddo kordhin, lana hirgeliyo doorasho waafaqsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka sida lagu sheegay qoraalka madaxweynaha. hadalkaasi waxa uu madaxweynuhu sii xoojiyey markii la isugu tegay magaalada Dhuusamareeb. isagoo hadlayay 22 Juulaayna waxa uu yidhi sidan: maalintiina la doorto ilaa maanta waxaan ku haynaa shacabka, xiriirka shacabka iyo dowladda waa in la xoojiyo, waa in awoodda shacabka lagu celiyo, waa in shacabku ay yihiin sovereign, dadka dowladnimada iska leh oo dalka iska leh yaa ku weyn, oo shacabku waa kicin, laabtoodii waa kicin, waxay aaminsan yihiin inay aadi doonaan doorasho toos ah bacdama wax alla wixii doorasho ahaa oo la yaqaanay hore loo soo maray. markii la isugu tegay magaalada Dhuusamareeb, khubaro kala duwan waxay filayeen in ra'iisul wasaare Khayre uu aad u sii cadayn doono mowqifkiisa si dheelitir siyaasadeed uu u yimaado. ha caddeeyo mowqifkiisa ama yuusan cadaynine, waxay u muuqatay madaxweyne farmaajo inuu ogaa mowqifka ra'iisul wasaaraha. 25 Juulaay baarlamaanka Soomaaliya waxay codka kalsoonida u qaadeen ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo dowladdiisii, waxayna ku codeeyeen inay ridaan. daqiiqada kadib tallaabadii uu baarlamaanku qaaday, madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu aqbalay go'aanka baarlamaanka uuna soo magacaabayo ra'iisul wasaare cusub. isla maalintaas ra'iisul wasaaruhu waxa uu ka soo laabtay magaalada Dhuusamareeb, waxaana uu cambaareeyey qaabka loo maray xilka qaadistiisa. waxaase uu sheegay inuu go'aansaday inuu iscasilo. xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen odawaa waxa uu ka mid ahaa xildhibaanadii u codeeyey in ra'iisul wasaare Khayre codka kalsoonida lagala laabto. annagu dee muddo dheer baan lahayn xukuumadda iyo madaxtooyada iyo madaxweyne farmaajo iyo xukuumaddiisuba runtii sharci ku tumasho iyo ogolaansho yani waxqabad xumo ayaa muddoba la soo taagnayn oon ku eedeynaynay. marnaba iskama aanaan bedelin in madaxweynuhu haddii maadaama madaxweynaha la doortay cidda markaa fashalkeeda madaxtooyada iyo haddii u muuqdo cidda ugu yaraan in inta la bedelo fashalka haddii la xallin karo lagu dareemi karana waxay ahayd xukuumadda. waxaad ka warhaysaa qodobo dastuuriga oo waaweyn ba xukuumaddan iyo madaxweynuhu iskula tunteen oo ay ka mid ahaayeen dhiibistii qalbi dhagax, oo ay ka mid ahaayeen weerarkii cabdiraxmaan cabshakuur, oo ay ka mid ahaayeen jawaari iyo arrimo kaloo aad u tiro badan oon diidanayn oon maalin walba ka hadlayna. waxaa ka mid ah habka nidaamka federaalka loola macaamilaya iyo dowlad goboleedyada. waxaad ka waraysaa haruuno annagu inaan lahayn war dowlad goboleedyada xayndaabka dalka iyo dastuurka dalka qayb muhiimay ku leeyihiin, madaxweynuhu ha la fariisto. dee waxaad ka waraysaa madaxweynuhu inuu dowlad goboleedyadii shaqada uu ka qabtay Jubbaland uu 2 u kala jaray almost Gado iyo intii kale Koonfur Galbeed iyo Galmudug shaqadii ay ka qabteen waad ogtahay. dee nimankaanu niman isla jirkoodu uu wadanka halis ku ahaa buu ahaa. marka dee annaga kalsooni markii horeba iskuma aanaan qabin annaga xukuumaddu, laakiin hadda riditaanka xukuumadda ma aanan sponsor garayn. mooshinaan annaga ka keennana kuma aysan dhicin, laakiin sida muuqata madaxtooyada pressure ka yimid ee guddoonka baarlamaanka soo maray baa uu ku dhacay. laakiin haddii nala ka waraysto inuu dhaco raalli baan ka ahayn iyo nus. haddaba khubarada dastuurka iyo falanqeeyayaashuba waxay sheegeen in hanaanka ridista ee ra'iisul wasaaraha aan loo marin sharci, gaar ahaan qodobka 54 ee xeer hoosaadka baarlamaanka oo dhigaya in doodda kalsooni kala noqoshada ay furanto 5 maalmood ka hor intaan codka la qaadin, isla markaana ra'iisul wasaaraha loo yeero lana siiyo waqti uu isku difaaco. tallaabo kale oo dhalisay dood dhinaca sharciga ah waxay dhacday 30 bishii Juulaay ee aynu soo dhaafnay, markaasi oo golaha wasiirada ee sii haya xilka ay ansixiyeen 5 xubnood oo ka mid noqonaya 9 xubnood ee golaha adeega garsoorka.
dhismaha golaha adeega garsoorka waxa uu hordhac u yahay dhismaha maxkamadda ugu awoodda badan dalka oo ah maxkamadda dastuuriga ah. maxkamaddaasi oo awood u leh inay qaado qodob kasta oo dastuuri ah oo laysku qabto. inta aynaan haddaba u gudbin maxkamadda dastuuriga ah iyo saamaynta ay ku yeelan karto muranada siyaasadeed ee taagan, bal aan eegno waxa uu yahay golaha adeega garsoorku. Ibraahim Iidle Sulaymaan waa guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya. golaha adeega garsoorku marka la leeyahay ama laga hadlayo mabda'a xagga dawladnimada ee leedo kala qaybsanaanta awoodaha, marka waaxda garsoorka cidda maamulaysa ee u sarreysa waa golaha adeega garsoorka, waa baarlamaankii garsoorka, sida golaha wasiiradu kale uu yahay baarlamaanka ama boardkii ugu sarreeyay ee wasaaradaha, ayaa golaha adeega garsoorka wuxuu yahay cidda maamulaysa maxay garsoorkii. sidee ayaa haddaba lagu soo kala xulayaa xubnaha ka mid noqonaya golaha adeega garsoorka? 9 xubnood waxay kala imanayaan, 3 waxay ka imanayaan waxa la beesha hay'adda lehdo amaba bulshada rayidka ayaa laga soo xulaya. waxaan soo jeedinaya golaha wasiirada, waxaana horgeynaya baarlamaanka ra'iisul wasaaraha ayaa horgeynaya. 2 waxa soo magacaabaya ururka qareennada Soomaaliyeed baa soo magacaabaya. 5 marka laga tago 4 kale xafiisyo ku imanaya oo xeeraryaha guud iyo gudoomiyaha maxkamadda sare, gudoomiyaha hay'adda xuquuqul insaanka oo aan weli la dhisin. marka la dhiso gudoomiyaheeda ayaa isna xubin ka noqon doona. maxkamadda dastuuriga oo iyana aan la dhisin ayaa isna gudoomiyaheeda xubin ka noqonaya. marka 4 xubnood waxay ku imanayaan xafiisyo oo qofka markaa xafiiska jooga ku doonaba ha ahaadee ayaa soo fadhiisanaya miiska oo noqonaya xubin ka mid ah. ansixinta xubnaha golaha adeega garsoorka ee golaha wasiirada ee xilka sii haya ma loo maray qaab sax ah? waa kan garyaqaan Ibraahim Iidle Sulaymaan, guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare. horta haddii xukuumadda dhacdo waxaa ka dhalanaya waxyaalo far badan baa sharci ahaan ka dhalanaya, oo waxaa ka dhalanaya siyaasaddii xukuumaddu markaa hore ku shaqaynaysay meesha inay ka baxdo oo ay lunto. waayo siyaasaddu waa waxa isku xidhayay ama barnaamijka xukuumadda waxa isku xidhayay xukuumadda iyo golaha shacabka. barnaamijka isku xidhayay, barnaamijka meesha baa ka baxaya. taas waa qodob. xukuumadda markii hore waxay xukuumad rasmiya oo dabeecadeedu ay tahay berman ay tahay ayay ahayd. taasina meesha wax ka baxaysaa imika dabeecadeedu ma aha xukuumad rasmiya ma aha, waa xukuumad ka meel gaara. laakiin waxay shaqaynaya kaliya waa maxay? waa hawlaha la yiraahdo hawl maalmeedka ayay fulinaysaa xukuumadda. marka iyagu mana samayn karaan oo awoodoodu ma aha ma gaarsiisna in ay soo saaraan go'aamo ay waajib tahay xukuumadda ka dambaysa inay fuliyaan. amaba go'aamada ay imika soo saaraan kuma khasbana xukuumadda kale waxba kuma waajibin karaan. sababtan waxa ugu waajibin karana waa maxay? waxaana haysan kalsoonidii baarlamaanka. qodob dastuuriya ama habraac kale ama xeer hoosaad u diidaya xukuumaddan hadda si hayaha ra'iisul wasaaraha iyo wasiiradiisa u diidaya inaysan ansixin karin qodobka golaha adeeg garsoorka miyaa jira? horta sharcigu waxa weeyaan waxaan waa awood weeyaan, awoodda sharciga bixiya. su-aashu waxay tahay ma aha wax u diidaya ma jiraan, laakiin waxa weeyaan ma jira qodob sharci awood siinaya. yaa sababtu waxay tahay qodobka 103 wuxuu tilmaamaya inay xukuumaddu sii haynayso ay hawl maalmeedkii sii wadayso, hawlihii sii wadayso inta xukuumadda kale la sameeyo. sidaa darteed xukuumadda tan fikirka amaba fiqiga xagga sharciga ee caalamiga waa maxay? in ay tahay maxay xukuumad ku meel gaara. sidaa darteed waa in iyaga laga rabaa xujada waa maxay? waa cidda leh awooddan waan leeyahay ba xujada laga rabaa. laakiin xujadu ma aha yaa u diidaya, waxa weeyaan yaa awood siinaya. qodobkeeba awood siinaya, qodob dastuuriyaba maxeerba waxa weeye way jirtaa cid meel awoodda bixinaysa. awooddu kuma timaado yacni xafiiska cidda joogta, laakiin awooddu waxay ku timaadaa maxay? waxa sharcigu bixiyey. xisbiyada mucaaradku waxay ka soo horjeesteen ansixintii xubno ka tirsan golaha adeega garsoorka ee xukuumadda xilka sii haysa. sidoo kale xildhibaanadii kalsoonida kala laabtay ra'iisul wasaare Khayre waxay qaarkood dhaliileen tallaabada ay qaaday xukuumadda xilka sii haysa. Soomaaliya waxay gashay qalalaasa siyaasadeed iyo mid dastuuri ah sababtoo ah khilaafka ku salaysan kala aragti duwanaanshaha doorashada iyo shuruucda waddanka. sidaasi waxaa qaba siyaasiyiin iyo sharci yaqaano. 9kii bishii Juulaay aynu soo dhaafnay ayaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre kulan uu la yeeshay golihiisa wasiirada uu ka sheegay inay ka shaqeeyaan sidii dalka ay uga qabsoomi lahayd doorasho waqtigeeda ku dhacda. waxay ahayd markii labaad ee hadal noocaas ah uu ka soo yeedho ra'iisul wasaaraha, kaasi oo muujinaya kala aragti duwanaansho u dhaxaysa isaga iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. shirka golaha wasiirada maanta waxaa ka soo baxay marka in golaha wasiiradu ay si joogtaha uga shaqeeyaan dardargelinta fududaynta ka shaqaynta sida ay ku dhici lahayd doorasho
ummadda soomaaliyeed ay isla ogoshahay waxaa kaloo isla qaadanay doorashadu inay ku dhacdo waktigii loogu talagalay ay ku qabsoonto sidoo kale waa in laga fogaadaa in ay dhacdo ama lagu shaqeeyo fikir ku salaysan muddo kordhin hadalkaasi waxa uu culays siyaasadeed saaray madaxweyne farmaajo jawaabta madaxweynuhuna waxay timid daqiiqada gudaheed iyadoo isla maalintaasuu madaxweynaha laftiisu ka daba qaatay ra'iisul wasaaraha wuxuuna sheegay inuu soo dhoweynayo baaqa golaha wasiirada oo ahaa in doorashadu ay wakhtigeeda ku qabsoonto wuxuu intaas ku daray qoraalka uu soo saaray madaxweynuhu laba qodob oo ahaa in awoodda loo dhoweeyo shacabka iyo inay lagama maarmaan tahay inaan dalka loo horseedin muddo kordhin lana hirgeliyo doorasho waafaqsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka sida lagu sheegay qoraalka madaxweynaha hadalkaasi waxa uu madaxweynuhu sii xoojiyey markii la isugu tegey magaalada dhuusamareeb isagoo hadlayay 22 Juulaayna waxa uu yidhi sidan maalintiina la doorto ilaa maanta waxaan ku haynaa shacabka xiriirka shacabka iyo dawladda waa in la xoojiyo waa in awoodda shacabka lagu celiyo waa in shacabku ay yihiin sovereign dadka dawladnimada iska leh oo dalka iska leh yaa ku wareegay oo shacabku waa kicin laabtoodii waa kicin waxay aaminsan yihiin inay aadi doonaan doorasho toos ah bacdama wax alla wixii doorasho ahaa oo la yaqaanay hore loo soo maray markii la isugu tegay magaalada dhuusamareeb khubaro kala duwan waxay filayeen in ra'iisul wasaare khayre uu aad u sii caddayn doono mowqifkiisa si dheelitir siyaasadeed uu u yimaado ha caddeeyo mowqifkiisa ama yuusan caddaynine waxay u muuqatay madaxweyne farmaajo inuu ogaa mowqifka ra'iisul wasaaraha 25 Juulaay baarlamaanka Soomaaliya waxay codka kalsoonida u qaadeen ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo dawladdiisii waxayna ku codeeyeen inay ridaan daqiiqada uun kadib tallaabadii uu baarlamaanku qaaday madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu aqbalay go'aanka baarlamaanka uuna soo magacaabayo ra'iisul wasaare cusub isla maalintaas ra'iisul wasaaruhu waxa uu ka soo laabtay magaalada dhuusamareeb waxaana uu cambaareeyey qaabka loo maray xilka qaadistiisa waxaase uu sheegay inuu go'aansaday inuu iscasilo xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen odawaa waxa uu ka mid ahaa xildhibaanadii u codeeyey in ra'iisul wasaare khayre codka kalsoonida lagala laabto annagu dee muddo dheer baan lahayn xukuumadda iyo madaxtooyada iyo madaxweyne farmaajo iyo xukuumaddiisuba runtii sharci ku tumasho iyo ogolaansho yacni waxqabad xumo ayaa muddoba la soo taagnayn oon ku eedeynaynay marnaba iskama aanaan bedelin in madaxweynuhu haddii maadaama madaxweynaha la doortay cidda markaa fashalkeeda madaxtooyada iyo haddii u muuqdo cidda ugu yaraan in inta la bedelo fashalka haddii la xallin karo lagu dareemi karana waxay ahayd xukuumadda waxaad ka warhaysaa qodobo dastuuriga oo waaweyn ba xukuumaddan iyo madaxweynuhu iskula tunteen oo ay ka mid ahaayeen dhiibistii qalbi dhagax oo ay ka mid ahaayeen weerarkii cabdiraxmaan cabdishakuur oo ay ka mid ahaayeen jawaari iyo arrimo kaloo aad u tiro badan oon diidanayn oon maalin walba ka hadlayna waxaa ka mid ah habka nidaamka federaalka loola macaamilaya iyo dowlad goboleedyada waxaad ka waraysaa haruuno annagu inaan lahayn war dowlad goboleedyada xayndaabka dalka iyo dastuurka dalka qayb muhiimay ku leeyihiin madaxweynuhu ha la fariisto dee waxaad ka waraysaa madaxweynuhu inuu dowlad goboleedyadii shaqada uu ka qabtay Jubbaland uu laba u kala jaray almost gado iyo intii kale koonfur galbeed iyo galmudug shaqadii ay ka qabteen waad ogtahay dee nimankaanu niman isla jirkoodu uu waddanka halis ku ahaa buu ahaa marka dee annaga kalsooni markii horeba iskuma aanaan qabin annaga xukuumaddu laakiin hadda riditaanka xukuumadda ma aanan sponsor garayn mooshinaan annaga ka keenana kuma aysan dhicin laakiin sida muuqata madaxtooyada pressure ka yimid ee guddoonka baarlamaanka soo maray baa uu ku dhacay laakiin haddii nala ka waraysto inuu dhaco raalli baan ka ahayn iyo nus haddaba khubarada dastuurka iyo falanqeeyayaashuba waxay sheegeen in hanaanka ridista ee ra'iisul wasaaraha aan loo marin sharci gaar ahaan qodobka 54 ee xeer hoosaadka baarlamaanka oo dhigaya in doodda kalsooni kala noqoshada ay furanto 5 maalmood ka hor intaan codka la qaadin isla markaana ra'iisul wasaaraha loo yeero lana siiyo waqti uu isku difaaco tallaabo kale oo dhalisay dood dhinaca sharciga ah waxay dhacday 30kii bishii Juulaay ee aynu soo dhaafnay markaasi oo golaha wasiirada ee sii haya xilka ay ansixiyeen 5 xubnood oo ka mid noqonaya 9 xubnood ee golaha adeega garsoorka dhismaha golaha adeega garsoorka waxa uu hordhac u yahay dhismaha maxkamadda ugu awoodda badan dalka oo ah maxkamadda dastuuriga ah maxkamaddaasi awood u leh inay qaado qodob kasta oo dastuuri ah oo la isku qabto inta aynaan haddaba u gudbin maxkamadda dastuuriga ah iyo saamaynta ay ku yeelan karto muranada siyaasadeed ee taagan bal aan eegno waxa uu yahay golaha adeega garsoorku
ibraahim iidle sulaymaan waa guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee soomaaliya. golaha adeega garsoorku marka la leeyahay amaba laga hadlayo mabda'a xagga dowladnimada ee la yidhaahdo kala qaybsanaanta awoodaha, marka waaxda garsoorka cidda maamulaysa ee u sarraysa waa golaha la yidhaahdo golaha adeega garsoorka, waa baarlamaankii garsoorka, sida golaha wasiirada kale uu yahay baarlamaanka ama boodhkii ugu sarreeyey ee wasaaradaha ayaa golaha adeega garsoorka wuxuu yahay cidda maamulaysa maxay garsoorkii. sidee ayaa haddaba lagu soo kala xulayaa xubnaha ka mid noqonaya golaha adeega garsoorka? 9 xubnood waxay kala imanayaan, 3 waxay ka imanayaan waxa la beesha hay'adda lehdo amaba bulshada rayidka ayaa laga soo xulaya. waxaan soo jeedinaya golaha wasiirada, waxaana horgeynaya baarlamaanka ra'iisul wasaaraha ayaa horgeynaya. 2 waxa soo magacaabaya ururka qareennada Soomaaliyeed baa soo magacaabaya. 5 marka laga tago 4 kale xafiisyo ku imanaya oo xeeraryaha guud iyo gudoomiyaha maxkamadda sare, gudoomiyaha hay'adda xuquuqul insaanka oo aan weli la dhisin, marka la dhiso gudoomiyaheeda ayaa isna xubin ka noqon doona. maxkamadda dastuuriga oo iyana aan la dhisin ayaa isna gudoomiyaheeda xubin ka noqonaya. marka 4 xubnood waxay ku imanayaan xafiisyo oo qofka markaa xafiiska jooga ku doonaba ha ahaadee ayaa soo fadhiisanaya miiska oo noqonaya xubin ka mid ah. ansixinta xubnaha golaha adeega garsoorka ee golaha wasiirada ee xilka sii haya ma loo maray qaab sax ah? waa kan garyaqaan ibraahim iidle sulaymaan guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare. horta haddii xukuumadda dhacdo waxaa ka dhalanaya waxyaalo fara badan baa sharci ahaan ka dhalanaya, oo waxaa ka dhalanaya siyaasaddii xukuumaddu markaa hore ku shaqaynaysay meesha inay ka baxdo oo ay lunto. waayo siyaasaddu waa waxa isku xidhayay ama barnaamijka xukuumadda waxa isku xidhayay xukuumadda iyo golaha shacabka, barnaamijka isku xidhayay, barnaamijka meesha baa ka baxaya. taas waa qodob. xukuumadda markii hore waxay ahayd xukuumad rasmiya oo dabeecadeedu ay tahay permanent ay tahay ayay ahayd. taasina meesha wax ka baxaysaa iminka dabeecadeedu ma aha xukuumad rasmiya maaha, waa xukuumad ka meel gaara. laakiin waxay shaqaynaya kaliya waa maxay? waa hawlaha la yidhaahdo hawl maalmeedka ayay fulinaysaa xukuumadda. marka iyagu mana samayn karaan oo awoodoodu ma aha ma gaarsiisna in ay soo saaraan go'aamo ay waajib tahay xukuumadda ka dambaysa inay fuliyaan, amaba go'aamada ayay iminka soo saaraan kuma khasbana xukuumadda kale waxba kuma waajibin karaan. sababtan waxay ku waajibin karaan waa maxay? waxaanay haysan kalsoonidii baarlamaanka. qodob dastuuriya ama habraac kale ama xeer hoosaad u diidaya xukuumaddan hadda sii hayaha ah, sii hayaha ra-iisul wasaaraha iyo wasiiradiisa u diidaya inaysan ansixin karin qodobka golaha adeeg garsoorka miyaa jira? horta sharcigu waxa weeyaan waxaan waa awood weeyaan, awoodda sharciga bixiya. su-aashu waxay tahay ma aha wax u diidaya ma jiraan, laakiin waxa weeyaan ma jira qodob sharciyo awood siinaya. yaa sababtu waxay tahay qodobka 103 wuxuu tilmaamaya inay xukuumaddu sii haynayso ay hawl maalmeedkii sii wadayso, hawlihii sii wadayso inta xukuumadda kale la samaynayo. sidaas darteed xukuumadda tani fikirka amaba fiqiga xagga sharciga ee caalamiga waa maxay? in ay tahay maxay xukuumad ku meel gaara. sidaas darteed waa in iyaga laga rabaa xujada waa maxay? waa cidda leh awooddan waan leeyahay ba xujada laga rabaa. laakiin xujadu ma aha yaa u diidaya, waxa weeyaan yaa awood siinaya. qodobkeebaa awood siinaya? qodob dastuuriyaba ma xeerba? waxa weeye way jirtaa cid meel awoodda bixinaysa. awooddu kuma timaado yacni xafiiska cidda joogta, laakiin awooddu waxay ku timaadaa maxay? waxa sharcigu bixiyey. xisbiyada mucaaradku waxay ka soo horjeesteen ansixintii xubno ka tirsan golaha adeega garsoorka ee xukuumadda xilka sii haysa. sidoo kale xildhibaanadii kalsoonida kala laabtay ra-iisul wasaare khayre waxay qaarkood dhaliileen tallaabada ay qaaday xukuumadda xilka sii haysa. xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa: xukuumaddan hadda horta waa xukuumad xilgaarsiin, ma haysato kalsooni baarlamaan. maadaama aysan haysanin kalsooni baarlamaan, wax go'aano ah oo ka badan in nolol maalmeedka dowladnimada la wado oo qaadan karto ma jirto. laakiin waxay qayb ka tahay tacadiyaadka dastuuriga ah oon hore usoo sheegnay. golo ma ahan hadda, waa kusibayaal. hadda sidii golay u shiraan, go'aano golay soo saaraan. waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah guddiga adeega garsoorka